try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود kusoo dhawaada barnaamijka xogaha iyo xaqiiqooyinka isboortiga oo aynu ku soo qaadano xogo ka daahsan oo aan daha kaaga qaadno. waxaanu ku soo qaadan doonaa kooxda xigta waxaana ay noqon doontaa kooxda kubadda cagta Manchester United oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn ee Premier League dalka England. hal ciyaareedkan iyo bandhiga kooxda Manchester hadii aan eegno waxay kaga jirtaa kala sareynta booska sideedaad iyaga oo 12 kulan oo ciyaaray 6 kamid ah guul gaaray 2 baraaji galay 4 laga adkaaday 20 gool dhaliyay 21 laga dhaliyay 1 gool oo deena ayaa lagu leeyahay iyaga ayaan abdaalac loo heesaa Manchester United 20 dhibcood booska sideedaad ay ku joogaan kooxda kubadda cagta Red Devils. xidigaha ugu bandhiga fiican ee kooxda kubadda cagta Manchester hal ciyaareedkan waxaa kamid ah Antonio Martial oo 6 gool dhaliyay waxaana in gool uu dhaliyay ay ku qaadanaysay 104 daqiiqo wax caawina muusan sameyn 620 daqiiqo waxa uu sameeyay 100 isku day oo gool loo bilan karay Antonio Martial. xidiga kale soo xiga Romelu Lukaku 4 gool ayuu dhaliyay waxaana gool inuu dhaliyay ku qaadanaysay 200 oo daqiiqo 801 daqiiqana wax caawina muusan sameyn xidiga lagu magacaabo Romelu Lukaku waxaana uu sameeyay 60% shoodad gool loo bilan karay. jadwalka kooxda kubadda cagta Manchester United waxaa kamid ah bisha November Premier League ay la ciyaari doontaa Sabti 24 November kooxda kubadda cagta Crystal Palace, Talaado 27 November groupka tartanka Horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League-na Young Boys ay la midaysan yihiin. December Premier League ay ku la ciyaari doonaan Southampton, Arbaco 5 December waxa ay la midaysan yihiin Arsenal kulan Premier League oo aad u xiiso badan. 8 December-na waxa ay la midaysan yihiin kulan Premier League kooxda kubadda cagta Fulham, tartanka Horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League ay Arbaco ciyaari doonaan. 12 December waxa ay la midaysan yihiin kooxda kubadda cagta Valencia, tartanka Horyaalada Yurub Champions League groupka H ayayna isku arki doonaan. Axad 16 December waxa ay la ciyaari doonaan kulan aad u adag kooxda ay Oltoman ee lagu magacaabo Liverpool. xidigaha ugu bandhiga fiican dhanka gool dhalinta dhammaan tartamada kooxda kubadda cagta Manchester United waxaa kamid ah Antonio Martial oo 7 gool dhaliyay, Paul Pogba oo 5 gool dhaliyay, Romelu Lukaku 4 dhaliyay, Juan Mata oo 3 dhaliyay, Rashford oo 2 gool dhaliyay, Marwan Varane oo 1 gool dhaliyay, Fred oo 1 gool dhaliyay, Luke Shaw oo 1 gool dhaliyay, Chris Smalling oo 1 gool dhaliyay iyo Alexis Sanchez oo 1 gool dhaliyay. haddii aan eegno achievement-iga guulaha kooxda kubadda cagta ee Red Devils waxaa kamid ah 3 jeer oo ay qaaday tartanka Horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League, 20 jeer oo ay qaaday koobka Premier League dalka England waana kooxda ugu badan ee taariikhda sidaas sameysay. 12 jeer ay ku guuleystay tartanka xiisaha badan ee lagu magacaabo FA Cup, 5 jeerna waxa ay qaaday tartanka xiisaha badan ee League Cup-ka. kooxda kubadda cagta Manchester magaceeda oo dhameystiran waa Manchester United Football Club waxa ay ka ciyaartaa horyaalka Premier League ee dalweynaha Britain. Red Devils ayaa lagu naanaysaa koodii bishii 1878 ayaa la aasaasay taa oo la macnaha inay kooxdan jirto 140 sano waana mid kamid ah kooxaha ugu waaweyn ee guud ahaan qaaradda Yurub. 3 kalar ayay ku ciyaartaa waana midabka guduudka oo ay ku caan ka tahay cadaanka iyo midabka madow. waxay ku ciyaartaa kooxda kubadda cagta ee Manchester gegida caalamiga ee Old Trafford waxa ay leedahay taageerayaal gaaraya 75,331 ruux. haddii aanu eegno sanadihii ay ku guuleystay tartamada kala duwan ee kooxdu qaaday waxaa kamid ah 1 jeer oo ay qaaday Club World Cup waa 2008, 1 jeer oo ay qaaday tartanka International Cup 1999, 3 jeer oo Champions League ay qaaday 1960
1968 1999 2008 Europa League ay 2017 qaaday hal jeer ay qaaday UEFA Super Cup 1991 hal jeer ay qaaday koobka loo yaqaano Cup Winners' Cup 1991 Premier League ay tiro badan qaaday kooxda kubadda cagta ee Manchester waana 20 jeer laba jeer ay qaaday Championship-ka waana xil ciyaareedadii kala ah 1935 iyo 1974 iyo 75 12 jeer ay qaaday FA Cup kooxda kubadda cagta Manchester United 5 jeer ay qaaday League Cup waa 1992 2006 2009 2010 2017 20 jeerna waxay qaaday tartanka xiisaha badan ee Community Shield kooxda kubadda cagta Manchester waxaa jira kooxaha hoos yimaada waxaana kamid ah daayirada kooxda Manchester ee da'doodu ay ku hooseyso 18 jirada kooxda Manchester daayirada heerka labaad ee B-da ee kooxda kubadda cagta Manchester iyo daayirada 23 jirada da'doodu ay ku hooseyso ee hoos yimaada kooxda kubadda cagta ee Manchester United kooxdan Manchester United ayaanan kamid ahayn kooxaha leh koox habla ah ee hoos yimaada safka kooxda kubadda cagta ee Manchester waxaa ku badan ciyaartooyda u dhalatay wadanka England waxaana ku xiga dalka Belgium-ka xidiga ugu da'da weyn ee kooxda Red Devils ka safkooda ku jira waa xidiga lagu magacaabo Lee Grant kaas oo ah goolhaye January 27 1983 ay u dhashay waana 38 jir waana ninka ugu da'da weyn ee kooxda kubadda cagta ee Manchester safkooda qaybta ka xidiga ugu da'da yarna waa xidiga Diego Dalot kaas oo dhashay March 18 1999 waana 19 jir u dhashay wadanka Portugal maamulaha kooxda kubadda cagta ee Manchester waa Jose Mourinho waa 50 jir u dhashay wadanka Portugal waxaana kooxda loo magacaabay May 27 2016 waxaana qandaraaskiisa uu ku ogyahay 30 bisha 6 2020 hadii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Manchester ciyaartooyda ka tirsan da'doodu waxa ay u dhaxaysaa 30 jir markii la celceliyo 19 waa ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Manchester ee ajnabiga ah kuwaasi oo kooxda kubadda cagta ee Manchester ka tirsan safka kooxda kubadda cagta ee Manchesterna waxa uu ka kooban yahay 26 ciyaaryahan hadii aan eegno haliyada kooxda kubadda cagta Red Devils ka soo maray oo aad u badan qaarkii ugu caansanaa hadii aan ka xusno waxaa kamid ah Ryan Giggs oo loo arkay mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee dhammaan waqtiyada kooxda kubadda cagta ee Manchester soo maray waxa uu ahaa mid kamid ah garbihii duulay ee qadka dhexena hal abuurka cajiibka ku soo bandhigi jiray waxaana uu ahaa mid Manchester aad u tabeen waxqabadkii bandhiga cajiibka lahaa xidigan uu sameeyay wayiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester 13 jeer ayuu ku guuleystay Premier League 4 jeer ayuu la qaaday FA Cup 2 jeer ayuu la qaaday Champions League waxaana loo arkaa mid kamid ah xidigii ugu wanaagsanaa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester maaliyadooda soo xirtay waxaana uu ku jira booska koobaad haliyada ugu fiicnaa ee kooxda Manchester labaad waxa ku jira George Best waxaa loo arkaa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee dabiiciga ah ee kooxdu ay lahayd waxa uu ahaa garab duulo kaas oo lagu tilmaami jiray inuu ahaa mid sidii electricii u dhalin jiray goolasha noocyada kala duwan taageerayaashuna ay aad u jeclaayeen in ka badan 500 oo kulan ayuuna u ciyaaray kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana uu ku weyn yahay qalbiyada kooxda kubadda cagta Red Devils-ka saddexaad waxa ku jira Bobby Charlton waxaa loo arkaa mid kamid ah raggii ugu fiicnaa ee kooxda Manchester waxaana uu yahay shakhsiga tayada iyo awoodda kooxda kubadda cagta ee Manchester ay leedahay ka dambeeyay Charlton ayaana Manchester 17 sano ku soo qaatay waxaana uu kula guuleystay 3 jeer oo horyaalka ah iyo sidoo kale European Cup uu la qaaday waayihiisa Manchester afraad Duncan Edwards ayaa ku jira Edwards ayaana ku dhintay masiibadii ka dhacday Munchen waana mid kamid ah waxyaabaha ay aad ku xasuusto isla markaana ku taalada ku ah Manchester United waxa uu kamid ahaa shumacyada mar walba laga xasuusto kooxda kubadda cagta ee Manchester United Eric Cantona ayaa ku jira shaki ma la gelin karo awoodii weyneed ee uu lahaa ninkan ayaa saameyn ku lahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester waxaana aad loo xasuustaa 1990 inkastoo uu xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay ku bilowday kulamo yar in kooxda uu la qaato haddana Faransiiskan waxaa loo arkaa mid kale oo cajiib ah booska lixaad Roy Keane ayaa ku jira waa mid kamid ah xidigihii ugu fiicnaa ee kooxda iyo kabtankii dabiiciga ahaa ee kooxdan soo maray waa nin u dhashay wadanka Irish waxaana aad loogu amaani jiray tayadiisa xidigan uu lahaa waxa uu ahaa mid aad u farsamo badan isla markaana kubadda xirfadiisa kaga soo dhalaali jiray xirfadiisa gida caalamiga Old Trafford waxaa lagu xasuustaa bandhigii cajiibka ahayd kulankii kooxdiisa ay ka hortageen Juventus kaas oo semifinalka tartanka horyaalada Yurub qayb ka ah 1999 Dennis Law ayaa sidoo kale
ka mid ahaa, kaas oo u dhashay Scottishka 237 gool ayuu u dhaliyay intii u dhaxaysay 1960 iyo 1973. Haddii aan soo koobno, Brian Robson ayaa sidoo kale ku jira, waxaana uu yahay mid ka mid ah raggii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray. Sagaalaad, Patrick Schmeichel ayaa ku jira. Ma jiro xidig haatan jooga oo Schmeichel darajo ahaan loo dhaweyn karo. Waa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa, isagoo si cajiib ah u badbaadin jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester, waana mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxdan maaliyadooda soo xirta. Tobnaad, Paul Scholes ayaa ku jira. Scholes waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta Red Devilska. Hal abuurka xidigani uu lahaa aad ayaana loo ammaanay qaab ciyaareedkiisa kooxda Manchester. CR7 ayaa qayb ka ah xidigii ugu fiicnaa ee kooxda. Superstar-ka u dhashay waddanka Portugal ayaana 42 gool u dhaliyay xilli ciyaareedkii 2007 iyo 2008, waxaana loo arkaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa. Roger Bryan ayaa sidoo kale ku jira. Bill Folkris, Johnny Gray, Mark Hughes oo la xasuusto inuu yahay macallin kubadda cagta ah, balse Manchester ayuu door fiican ku lahaa. 163 gool ayuu u soo dhaliyay Red Devilska, waxaana lagu xasuustaa goolal badan oo muhiim inuu u dhaliyay. 2 gool ayuu ka kacay kulan FA Cup-ka ah oo final ah, sidoo kale UEFA Cup-ka ay ku guuleysteen ayuu door weyn ku lahaa. Mark Hughes oo ka mid ah tababarayaasha horyaalka Premier League. Mark Hughes ayaana haatan macallin u ah kooxda kubadda cagta ee Southampton. David Beckham ayaa la xasuustaa inuu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu saameynta badnaa ebed, waxaana uu ahaa talentii u dhashay waddanka England, waana kii ugu weynaa sida la aaminsan yahay. Intii lagu guda jiray 1990 bilowgii waayihiisii, waxa uu ahaa mid xirfad badan isla markaana aad bandhig cajiib u sameyn jiray. Wayne Mark Rooney waa mid ka mid ah xidigaha aan la iloobi karin waayihiisii quruxda badnaa ee kooxda kubadda cagta ee Red Devilska uu ku soo qaatay, waana mid ka mid ah waryahanadii ugu fiicnaa taariikhda kooxda Red Devilska. Ninkan ayaa 197 gool dhaliyay waayihiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester. Edwin van der Sar waa mid ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa ee xusuusta weyn ku leh kooxda kubadda cagta ee Manchester. Goolhayahan ayaana loo arkaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee soo metelay kooxda kubadda cagta Red Devilska, waana haliyey u dhashay waddanka lagu magacaabo Netherlands. Sidoo kale waxaa ku jira xidiga lagu magacaabo Bobby Grandi, Martin Bujin, Dennis Floyd, Ruud van Nistelrooy waa mid ka mid ah sidoo kale kuwii ugu saameynta badnaa ee kooxdan. Xidiga u dhashay waddanka Dutch-ka ayaana ahaa qalin kusoo dhalaalay geeda caalamiga Old Trafford. Manchester ayuu u dhaliyay 150 gool, kuwaas oo aan inaba la iloobi doonin isla markaana aad u ah kuwa cajiib ah, maadaama uu ku caan ahaa goolasha bokiska xidigani waayihiisa kooxda Manchester. Nemanja Vidic ayaa ka mid ah oo ahaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxda. Ma jiro laba eray oo lagu qeexi karo Vidic. Serbiyaankan ayaana la xasuustaa inuu ahaa daafacyadii ugu fiicnaa ee kooxda markii uu la mataaneysnaa saaxiibkiisii Rio Ferdinand. Kooxda Manchester ayaana haysata dhibaato badan oo dhanka daafacyada ah, laakiin ogow kooxdan saameyntii ay soo lahayd iyo xidigii cajiibka ee soo maray. Toby Taylor ayaa sidoo kale ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdan soo maray. Steven Bruce oo haatan macallin isku bedelay ayaa ahaa kabtankii kooxdan Manchester markii ugu horeysay Premier League oo ay ku guuleysteen. Xusuus gooniya ayuuna ku leeyahay. Dennis Irwin ayaa qayb ka ah. Rio Ferdinand ayaana ka mid ah sidoo kale kuwii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray, waana mid ka mid ah daafacyadii kooxda. In ka badan 10 sano ayuu kooxdan ku soo qaatay. Sidoo kale waxaa qayb ka ah xidigii ugu saameynta badnaa ee kooxda Gary Neville oo ka mid ahaa xidigihii tayada badnaa ee kooxdan soo maray waayihiisii kooxda kubadda cagta ee Manchester uu ku sugnaa. James Tam ayaa ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray. Ma jiro ciyaaryahan ka kulan badan kooxda kubadda cagta ee Manchester soo maray. Ayaa ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester soo maray, inkastoo kulamo badan uusan u ciyaarin, haddana 3 sano ee Old Trafford uu ku soo qaatay waxa ay ahaayeen kuwo dahabi ah, isla markaana kooxda qaaradda Yurub ay ku xooganayd. Steven Cobble ayaa sidoo kale ku jira kuwii ugu fiicnaa ee kooxda Manchester soo maray. Andy Cole ayaa sidoo kale qayb ka ah. Paul Ince ayaa sidoo kale ku jira kuwii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester soo maray. Kuwaasina waa haliyada kooxda kubadda cagta ee Manchester United marnaba aysan iloobi doonin, isla markaana ku weyn qulubta jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee Red Devilska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester waxa ay soo martay marxalado kala duwan, waxaana la xasuustaa markii loogu yeeri jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester magaca caanka ay ku ahayd ee Newton Health FC in mar ay ku soo ciyaartay
ciyaartay 5 ciyaartooy 1897 iyo 1998 sidoo kale 4 ciyaaryahan ayay ku soo ciyaartay iyagoo loo yaqaan Newton waana xilli ciyaareedkii 87 iyo 88 sidoo kale mar ayay 10 ciyaartooy ku soo ciyaartay waana iyagoo loo yaqaan Newton waana 1899 iyo 1900 marxalado adag oo kala duwan ayana kooxdan soo martay mar ayuu kooxda ku sugnaa hal ciyaaryahan oo qura waana markii kooxdan loo rogay magaca Manchester United waana xilli ciyaareedkii 1915 iyo 16 laba ciyaartooy ay mar ahaayeen waana 1918 iyo 19 Manchester United taas oo muujinaysa in ciyaartooy badan oo kooxdan soo maray iyo macallimiin ay ku leeyihiin abaal gooni ah hadii aan ogno mid kamid ah safafka kooxda kubadda cagta ee Manchester xilli ciyaareedkii 2002-2003 39 ciyaaryahan ayay ka koobnaayeen safka kooxda kubadda cagta ee Manchester ee xilliga golayaasha hadii aan ogno waxaa kamid ah Fabian Breath oo Francis ahaa Roy Carroll oo Netherland ahaa Ricardo oo Spain ahaa Luco Steel oo England ahaa Ben Williams oo isaguna England ahaa daafacyada xilligaas waxa ay ahaayeen Laurent Blanc oo France ah West Brown oo England ah Rio Ferdinand oo England ah Mark Lerinch oo England ah David May oo England ah Gary Neville oo England ah Philip Neville oo isla England ah John O'Shea oo Ireland ah Lee Roach oo England ah Nigel Sylvester oo Francis ahaa qadkooda dhexe xilligaasna waxa uu ahaa qad dhaxo adag waxaana kamid ahaa David Beckham oo England ah Nicky Butt oo England ah Luke Gedwick oo England ah Jamie Davis oo England ah Chris Eglis oo England ah Darren Fletcher oo Scottish ah Quinto Fortin oo South Africa ah Ryan Giggs oo Wales ah Roy Keane oo Ireland ah Danny Bush oo England ah Kieran Richardson oo England ah Paul Scholes oo England ah Michael Stewart oo Scott ah Joan Steven Veron oo Argentine ah weerarkooda xilligan waxa uu ahaa Diego Forlan oo Uruguay ah Colin Hales oo England ah Danny Nardillo oo Wales ah Olen Gunnar oo Norwich ah Mads Tim oo Denmark ah Ruud van Nistelrooy oo Netherland ah iyo Danny Webber oo England ah Sir Alex Ferguson ayaan ahaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester xilligan waxaana caawiyay u dhashay wadanka Portugal ee lagu magacaabi jiray Carlos Queiroz hadii aan ogno qiimeyn ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Manchester taageerayaasha dunida ku nool markii boqolli ahaan loo eego as universal 80 kamid ah waa kuwa jecel kooxda kubadda cagta ee Manchester 20na waa kuwa nacab xalleeya ma jiro taageero dhexdhexaad ah ama uu nacab yahay ama uu taageero ayna sheekada ka dhigan tahay balna la soo qiimeey kooxda kubadda cagta ee Manchester Soomaaliya ma looga taageero badan mise iyaga ku badan kooxdan dadka ugu badan ee taageera ma jiil hadda soo baxaya mise waa dhalinyaro mise dad odayaal oo hore u bata ayaa kooxdan taageera kirkaagana la soo wadaag mahadsanidin dhamaantiin gabadhan barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya xogaha iyo xaqiiqooyinka isboortiga anigoo waa Bashiir Maxamed Bardaro tan iyo kooxda xigta intaan dib ugu kulmi doono dhamaantiin oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot.